shalayto waxaan tagnay isbitaal martini markii ninka uu ku geeriyooday intii ka horeysana waa la soconnay oo xaaladiisa saacad ayaan ula soconnay nasiib daro markii laga keenay mataqaanaa jowhar waxaa lagu hormariyey isbitaal digfer habeenkii subaxiina waa laga soo qaado waxaa la keenay mataqaanaa digfer martini sorry dowladdu waxay ku dhawaaqday xanuunkan dartiis in isbitaal martini loo diyaariyey in lagula tacaalo dadka xanuunkaanu ku dhacay publically mataqaanaa idaacadaha iyo mataqaanaa warbaahinta ayaa laga sii daayay marka qalbigu dadka wuu degay wuxuuna u degay in meel lagula tacaalo dowladdu u diyaarisay laakiin nasiib daro maxaan kala kulannay markii aan tagnay shalay duhurkii markuu dhimanayay ninkaas mataqaanaa wuxuu waayey wax oxygen ah oo ku neefsadaa loo waayey hadda waa isbitaalkii dhammaa oo loo diyaariyey in cudurkaas lagula tacaalo waa garta marka yani waa nasiib darro weyn runtii oo aan isleeyahay shacbiga soomaaliyeed waxay ku noqonaysa in laga qariyo ma aha waxyaabaha hadda annaga aan usoo bandhigayno waxa weeye dowladduna inay ogaato oy tallaab ka qaado shacbiga soomaaliyeedna inuu ogaado sidii xal loogu heli lahaa oo loo wada dadaal tago in arrimahaas mataqaanaa laga wada shaqeeyo hase yeeshee ninkaa dhintay wuxuu ugu dhintay isbitaalka oxygen la-aan daryeel la-aan ha dhintay qofkii markuu dhintay maxaa policy oo siyaasada oo ka dambeeya marka hore waa qofka in meeshii lagu daaweeyaa marka labaad haddii tiisi u timaado ilaahay darti oo qofkii meeshii ku dhinto maxaa qaabkee loo siyaasadeed qaabkee loo aasaya yaa aaskiisa iskale yacni in mataqaanaa procedurkii aaska ama habkii lagu aasi lahay loo diyaariyo oo isbitaalkii oo u diyaariyo oo loo mataqaanaa qabrigii loo qodo oo karfantii loo keeno oo mataqaanaa tartiibintii ilaa qabriga laga duugayo ay barnaamijkaas ay ku salaysan tahay waa la yimid dadkii ahalka ahayaa yimid qaataa la yihi ninkaas soo duugta marka sow ma imaanayso in ummad badani meeshaas mataqaanaa dhib ka soo gaaro mar haddiisan mataqaanaa dad gaar ah oo tareerin iyo tababar iyo qalab lagu rakibay aysan mataqaanaa aysan xirnayn oo howlahaas aysan fulinaynin taas horta marka koowaad waa qeyb nasiib daraa oo aan ka xunahay inay dhacdo maanta ma taagna ka soo qabo prime ministerka markii oo kiiskaanu yimid wuxuu caddeeyey inuu lacag ilaa 5 milyan ah uu maaragtay u dhigay uu yihi waxay u taallaa in lagula tacaalo cudurka coronavirus marka yacni xataa mataqaanaa haddiiba aan la helaynin in haddii daawo kale laga waayey inay qofkii qaabkii tartiibiskii lagu aasi lahaa yacni iyo ambalastii iyo wixii loogu diyaariyay aysan mataqaanaa aysan diyaar markaas aysan ka noqon at the same time shalay amiin ambulance aan wacanay markii mataqaanaa ambulance lagu qaadoo kale xataa annaga aan waaynay oo maaragtay meesha aan ugu samaynay marka maanta maalin siyaasadeed ma aha waa maalin ummadda soomaaliyeed oo dhan intay gacmaha isqabsato ay u gurmato sidii mataqaanaa xanuunkaas dilaaga ah looga badbaadi lahay baryo alleh iyo waxqabad waa mahadsantaha xildhibaan xogta ama wararka laga helayo martini waxay kaloo ay sheegayaan inaanay daba oolin oo qofkii bukaanka ah meesha jooga ehelkiis ay daawo ka soo iibsanayaan dibadda haddii daawo ay dibadda ka soo iibsadaanna ay ayaga siinayaan tusaale haddii cirbado ku jiraan in ayaga gacantooda ku durayaan oo dhakhaatiirtu aysan ogoleen ma ku aragteen arrintaas wallahi hadda xaqiiqadii aniga ma kor istaagin oo dee markaas daawada la siinayo lama joogin laakiin wiilashii waxay ii sheegeen in ayaga baristamoolka iyo wixii kale ay soo gateen wiilalaa la joogay oo laba wiil u dhalay iyo 2 adeero u yahay 4taba way la joogeen sida mataqaanaa daawada usoo gadayeen wixii kaalmaha ay sii kareen ayay siinayeen
marka taas waa sax wax yaalla oo keer ah meeshaas ma jirin waa arrin loo baahan yahay in hadda yacni dibu habeyn lagu sameeyo loo istaago uusan qof dambe uusan mataqaanaa dhibkaas ula kulmin sababta aan hadalkan usoo jeedinayno oo amaan shacbiga soomaaliyeed u gaarsiinayno amaan dowladda u gaarsiinayno ayaa waxay tahay in arrintaas laga tabaabushaysto oysan dib u dhicin aya marka maadaama ay doodi ka dhalatay sidii loo aasi lahaa dee dabca meydku waa la dhaqaa dee waa la aasaa marka howshaasna waxay u baahan tahay cilmi iyo tababar gaara markii xaaladan covid-19 lagu jiro ma idinkaa isxilqaamay oo intaa sameeyey oo heliyey qaraabo leh mise waa ugu dambeyn waa tasheen caawimaadii dowladda ee ahayd in dadka iyadu ilgaar ay ku egto oo maadaama qofka aan la oofsaday sidii loo aasi lahaa oo loo dhaqi lahaa gacan ma ka geysat wallahi nin dhakhtarahoo jooga unbaa markii dambe na caawiyey oo runtii yiri bal dad dhaqaan aan raadina dadkaasa marka lala tacaamulay oo dhar iyo wax loo geliyey oo system u sameeyeen markii ambalaasku timid oo meydka la qaadayane wiilashii la joogay iyo martaqaanaa darawalkii wixiina kolley waxaa loo geliyey dhar cadcad oo ay keeneen intaasaan wax kaalmaa oo ku saabsan mataqaanaa tartiibintaas aan ka aragay marka waxaa tiri 4 qofaa la joogtay oo caruurtiisa ah marka 4taa qof isaga ma meel bay wada joogeen mise kor ayay kala socdeen oo ereyada isbitaalka bay joogeen mama wayla joogeen sida informationka aniga ku helay wayla joogeen wayla joogeen meesha midda kale waxaan maqlaba in dadki qofkii tagaba aan laga celinayno dadku maaragtay sida bukaan caadiya la isaga soo booqanayo hadal saasana waa ay soo gaaray xaqiiqatii mataqaanaa gaar uma hayo laakiin sheekada markaas taasna waa ay tile ma jirtaa maadaama arrintan aad la kulantay mas-uul aad tahay oo dadkii hogaamin laad ku jirta cid dowladda ka tirsan oo wasaaradda caafimaadka iyo khubarada iyo guddiga arrintan ku howlan qof aad kala hadashay ma jirtaa halistan taagan wallaahi haa raggaa ila kale oo ila socday oo ayagana mataqaanaa mas-uuliin ah ayaa hadalladaas kala galay waxaan rabaa hoon halka aniga aan maaragtay maanta u imid inaan dowladda yacni usoo jeediyo iyo shacbiga soomaaliyeed dhammaantood maanta maalin siyaasadeed ma ahan maalin brobaganda ma aha waa maalin cudur halaaga adduunka u yimid oo isugu jirta gurmad oo dowladda iyo dadka soomaalida ahi laga rabo culummada soomaaliyeedna duco iyo allabari aan rabno dhammaan ilmaha dugsileyda in maaragtay kulli qof kasta oo soomaaliya inay qur-aan akriso alla ay bariso bacdamaa dad masaakiina oo aada u maaragtay liita aan nahay baryaha alle inaan tiir ka dhigano